biyo ka waran bawdiyahayga ka day ayuu ku jawaabay baali xayawaanka la yiraahdo raha ama rakaha ama haraha ay dadka qaarna u yaqaanaan waa noole marka hore luluma aha kadibna isu bedela rakahan aad aragteen afarta lugood leh labada gacmood hore iyo labada lugood ee dambe lulumuhu sidiisaba biyaha uu ku dhaxdashaa biyaha uu ku dhaxweynaadaa oo marka dambana rakaha isu bedela deedna noolihii kale yiri baa la yiri warbal xayawaankan uu biyaha ku dhex jira inuu ka wareysana biyuhu sida ay dal u leeyihiin rakuhu sida aragteen ba aad buu cajiro dhuudhuuban yahay ama bawdiyaha markaas la yiri baa la yiri warbal biyo ka waran wuxuu yiri baa la yiri bawdiyahayga ka day hadii biyo nacfi leeyihiin waxaad arki lahaydeen anoo bawdiyo kuuskuusano xoog leh muqdisho ayay gobolada kala soo waceen gobolka banaadirey nabad iyo nolol ka waran markaas ay tiri war dhafoor buu ku yaalaa muqdisho ama banaadir gobolka banaadir saddex jiim ayuu dhaxeeyaa waxay tiri dawlad xukuumadda nabad iyo nolol jid ma leh oo jidiin ma leh oo chief ma leh jid ma laho wadada way xidhanta jidiin ma laho shaqaalihii cid qaadanaysa lama arko dawladdu bajad ay dadka dhalinyarada ku shaqaaleysiisa ma leh chiefna ma laho nabadi ma talo waa taa habeen walba meydbarigu ku dhex baryahay waxay tiri banaadir iyadoo u sheekaynaysa goboladii kale khudbadaha na soo gaadhay ee shacabka soo gaadhay reer banaadir khudbada madaxweynaha waxa naga soo gaadhay walaalayaal mid gudoomiyaha baarlamaankana waxa naga soo gaadhay aan isdhageysano mid ra'iisul wasaarahana waxa naga soo gaadhay diyaar ma u tihiin inaan ayaa naga soo gaadhay waxay tiri hididiilada kaliya ee aanu leenahay in habeenkii ku saxna waxay tahay allow subaxdii jidka oo furan ma heli doontaan amarka naga soo gaadhay xukuumadda nabad iyo nolol waa kala wareeg waxay tiri xukuumadda nabad iyo nolol saddex dhagax bay u dhaxaysaa dhagax ay jidka ku goosato iyo dhagax ay dhigto aan la dhameystireynin iyo dhagax ay dhaqaalaha ku ridato dhaqaalaheeduna waa sur dhagax gashay waxa la yiri xukuumadda nabad iyo nolol qofkii aan aqoonin ee aan arag xaaladeeda dhabta way la weyntahay waxa la yiri baa nin aad u magac dheeraa oo mucaydi la oran jiray carab ahaa ayuu nin aad u tamaniyay bal inuu arko taana markuu arkay ayuu wuxuu ka fiilahayay iyo wuxuu ku arkay bay isu dhawaan waay markaasuu yiri baa la yiri an tasma'a bil mucaydi khayrun min an tarahu mucaydi inaad maqasho ayuu kaga khayr badan yahay inaad aragto haddaba xukuumadda nabad iyo nolol inaad maqasho ayay kaga xiisa badan tahay inaad aragto aad baan idin salaamayaa jaalayaal